magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa maanta si rasmi ah uga daafurmay shirka golaha dhexe ee xisbiga mucaaridka ee UCID waxaana shirkaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID xubnaha golaha dhexe ee xisbigaasi mas'uuliyiin ka socotay xisbiyada kulmiye iyo wadani iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horeyntii waxa munaasabadani daafuray abarasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi isagoo soo dhaweeyay shirka golaha dhexe xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID waxaana kamid ah hadaladiisii sharaf weyn gobolka Togdheer oo ah in maanta lagu qabto kalfadhigii toddobaad ee shirka golaha dhexe ee xisbiga UCID sharaf weyn bay noo tahay gobol ahaan iyo ka magaalo Burco ahaanba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbiga madaxdiisa kaadariintiisa marti sharafta iyo dadweynaha kale ee ka soo qayb galayba ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ugu rajaynaynaa inuu noqdo shir wanaagsan oo midho dhala oo ay ka soo baxaan waxyaabihii loogu talagalay ama ujeedada xisbigu uu ka lahaa oo u noqdo jamhuuriyadda Soomaaliland waxtar sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo xisbigaasi ka tirsan iyaguna halkaasi ka jeediyay hadallo kala duwan kalfadhigii toddobaad ee golaha dhexe ee xisbiga UCID 181 xubnood ayuu ahaa tirada golaha dhexe saddex meelood oo laba in ka badan baa joogto waxa jooga 157 xubnood baa jooga oo inoo fadhiya sidaas aanu kooramku inoogu buuxaa waxaanu wadnay muddo fara badan baan wadnay guddi baanu ahayn guddideedii hawshii waqtiga aad noo dirtay aad noo magacowday waanu ka soo baxnay waanaga gudanay waana maanta loo fadhiyo waxaan xusi karaa maanta intiina golaha dhexe halka fadhida iyo marka loo eego inta qof iyo inta shakhsi ee soo martay xisbiga inay inta fadhida saddex laab intii soo martaa ay ka badantay aba qolan ilaahu naxariista dad badan oo gooriyoodeen rag badan iyo haween badan oo xisbiga u cidna runtii xisaabta kale ay galeen oo waxa maanta marxaatino ah saaxiibadeeda wadani oo maanta xisbi qaran ah inay kamid ahaayeen xisbiga ogeeyda 1991 haddaanay haweenka Soomaaliland iyo uqaasheena sharafta liya aanay jirin ragowtay maydan xidhateen xisbiye qaranna maydan noqoteen waxa ogtihiin inay yihiin haweenka Soomaaliland kuwa salka dhulka u dhigay Soomaaliland hase yeeshee idinkama hayno annagu ka haween ahaan doorkii aanu ku lahayn dalkan aynu u baahanahay waxyaabaha qarannimada Soomaaliland wax u dhimaya oo qarankeena ku soo duulaya hadday tahay dawladda farmaajo ee koonfureed oo taangiga lagu ilaaliyo oo faragelinta qaawan inagu haysa hadday tahay danayo wali aan sanad jirsan hadii ay tahay waxyaabaha u baahan inaynu ku tiiqtiiqsano oo aynu cod dheer kaga hadalno golaha dhexe iyo xildhibaanada doonaya inay ka mid noqdaan hoggaanka dalka siyaabaha hadda aan u aragnay in ay ku habboon tahay aanu soo jeedinayno kulay la nagaga dayan doono bal marka hore waxaad ogaataa sidoo kale intay munaasabadani socotay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ku kala hadlayay xisbiyada kulmiye iyo wadani nasiib darro wixii 16 sano ka hor markii 18 sano ka hor aynu nidaamka multi-party political system-ka qaadanay aynu ka gudubnay ayaa 7 sano u dambeeyay iyo 2 sano hadda 9 sanadood dib inoogu celisay 19 ama kaabka iyo fajaca maanta dalka ka taagan waxa sababay axsaabta mucaaridka oo hanaankii axsaabta dalka oo hanaankii loogu talagalay hanaan aan ahayn qaaday waxa aan qirayaa oo taariikhda Soomaaliland ay qiraysaa xisbiga UCID inuu yahay xisbiga ugu daaweynaa dhibaatooyin fara badan iyo turaanturooyin badan ka soo gaadheen muddadii geed socodkii
dimuqraadiyadda iyo dhismaha axsaabta Soomaaliland ilaa maanta aynu joogno. ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo gabagabeeyay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe isagoona halkaasi ka jeediyay hadlo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen adkeynta ammaanka iyo sidoo kale sidii meel looga soo wada jeedi lahaa qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland waxaana ka mid ah hadaladiisii waxaanu u qaadan weynay dadkii hadda uu subxaanahu wa ta'aala ilaahay ka nabadgeliyay taliskii Maxamed Siyaad Bare ilaahay u fudeediyay qaxoontigii 2 sano qura qaxoontaayeen hadda shukriga ka badin lahaayeen dagaalamay maxaa keenay waxaan soo ogaanay ilaa 60kiiba mushkiladayna haysatay inay ahayd hoggaan xumo taa waxa weeye waxa leenahay dawladda iyo wayna salaadiinta ka hawlgashay arday keenan yataanu sina anaga u dambeeyna anaga iyo hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camaar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco.